Waxaynu daha ka faa'iidi doonaa qorshaha ku hoos qarsoon kulan dhawaan magaalada Muqdisho ay ku yeelan doonaan Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada uu qayb ka yahay gobolka Banaadir. Kulankaasi oo wax ka bedel loogu sameyn doono qodobo ka mid ah heshiiskii kol hore ay madaxdaasi ku saxiixeen magaalada Muqdisho. Ka hor intaynaan u guda galin xogtaan, fadlan subscribe saar haddii aad nagu cusub tahay, gambaleelkana furo haddii aad ka mid tahay saaxiibadii hore noola joogay. Like, share, mahadsanidin. Madaxda maamul goboleedyada uu qayb ka yahay gobolka Banaadir iyo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay Muqdisho ku yeeshaan kulan looga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Sida uu ogaaday xogaha siyaasadda, madaxda maamul goboleedyada iyo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ka wada hadli doona qodobo ku saabsan in la yareeyo tirada ergada soo dooranaysa mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. Sidoo kale xogta ayaa sheegaysa inay suurtagal tahay in madaxdu isla falanqayso in hal deegaan doorasho lagu soo koobo goobaha codeynta, midaasi oo ka dhigan in madaxda kulankaasi ay wax ka bedel uga sameyn doonaan laba qodob oo aad u xasaasi oo ka mid ah qodobadii ay hore ugu heshiiyeen. In doorashada lagu qabto laba magaalo ayaa wajahaysa caqabado farsamo, kuwa amni iyo mid dhaqaale, iyo weliba xiisado u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha degan magaalooyinka la qorsheynayo in doorashadu ay ka dhacdo. Ilaa 3 magaalo oo ka mid ah deegaan doorashada ayay adag tahay xilligan in doorasho lagu qabto, kuwaasi oo kala ah Beledweyne, Garbaharey iyo Baraawe. Sidoo kale magaalooyinkaas qaar ka mid ah ayaa deegaano ku dhow ay aad ugu xooggan yihiin kooxda Al-Shabaab. Si kastaba, qorshaha wax ka bedelka qodobadaasi ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu si weyn uga hor imaan doono madaxweyne Farmaajo oo weli awood siyaasadeed ku leh dalka, maadaama ay meesha ka saarayso doorashada Garbaharey uu aad isugu haleynayo 16 kursi ee halkaasi yaala. Heshiiska ay kala saxiixdeen madaxda Soomaalida 27 May ayaa xeerinayay in ergada soo xulanaysa mudanayaashu ay noqoto 101 iyo in maamul kasta laba magaalo laga soo xulo sharci dejiyaashiisa xeer dejinta 11aad. Si kastaba ha ahaatee, haddii isbedelkan u yimaado waxay ka dhignaan doontaa in mar kale lagu laabanayo doorashadii qabsoontay 2016, waxaana labadan qodob ay yihiin farqiga keliya ee u dhexeeya doorashadaasi iyo midda hadda. Fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto channelka xogaha siyaasadda si aad ula socoto siyaasadda Soomaaliya iyo caalamka.